إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله سبحانه وتعالى فإن تقوى الله جل وعلا أساس السعادة وسبيل الفوز في الدنيا والآخرة والعاقبة دائما وأبدا لأهل التقوى عباد الله لقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنن ابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه وطوبى عباد الله قيل هي الجنة وقيل هي شجرة في الجنة لا يقطعها الراكب إلا في 100 عام وويل عباد الله قيل هي النار وقيل العذاب الشديد والنكال الأليم حمانا الله وإياكم ووقانا ووقاكم ولا ريال وحان نبيك كسبنا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سليمان بن ماجه وسننته وكسو صاري من حديث أنس إن رسولك عليه الصلاة والسلام إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر وحادتك كمد قار خيرك فريه سأه شرك حريه سنأه وخير يوناغو دن فرا شر يحمانو دن نحده وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير وحاكلو ددك كمد قار فريه شرك وشر دن فرا مغاليق للخير خير لما أنتي نحده وقفل كي مركا خيرك فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وحونا أسقناضي شن إلهي أبا المرنتي أسقناتي عدوا إلهي سبحانه وتعالى كي يلو كدقه خيرك فريهيسا عدوا إلهي سبحانه وتعالى أقل يقعمهيسا أي إلهي سبحانه وتعالى قفك نوعاسيا waxa u sugnaaday wanaag iyo khayr baa u sugnaaday wayl liman ja'ala Allah mafatih ash-sharr ala yadayhi hoog iyo halaag cadaab ilaahay iyo cadadii waxay u sugnaatay ciduu ilaahay subhanahu wa ta'ala ka dhigo sharka furayaashiisa qaar marka gacmihiisa ku jira ciduu ilaahay ka yeelana hoog iyo halaag baa u sugnaaday markuu rasuulku ilaahay calayhi salaatu wasalaam duuba waxay leeyahay cilmigu waxa loo jeedaa wanaag ayaa u sugnaaday qaarkood waxay leeyihiin janno iyo abaalmarin ayaa qofka noocaasiya u sugnaaday qaarkood waxay ku macneeyeen inuu duuba uu yahay geed jannada ku yaala oo qofka hoos socda 100 sano una ka dhamaanaynin geedka noocaasi abu qofkaasi helaa bimaana jannada ayuu galaaba loo jeedaa waweylun marka la yidina hoog iyo halaag baa qofka u sugnaaday macnaheedu weeyaan ama cadaab iyo naar ayaa u sugnaatay iyo cirib xun
قفك إلهي سبحانه وتعالى قعمه سوكي له مفتاح الشركة خير كذا مركز حرية ولا ليال وحديث آديات وين أو قيمة بدن dadkiina u qaybiyay inay laba qaybood yihiin qolo khayrka furta oo sharka xidha iyo qolo sharka furta oo marka khayrka xidha qof kasto inaga midana naftiisa ha eego oo xaalkiisa ha fiiriyo bal labada kooxood iyo labada qaybood ee rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam midka uu ku jiro taariikhdiisa dib ha u eego qofku oo xaalkiisa ha eego dhaqankiisa ha fiiriyo muaamalada iyo dadka uu ku dhex jiro ee la muaamaloonaya ha fiiriyo shanigiisa iyo arinkiisa sida uu yahay ma furaha khayrka mise waa furaha sharka ma mid khayrka xidha mise waa mid sharka xidha waa inuu qofku naftiisa xisaabiya inta ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofka uu xisaabin maxaa yeelay qiyaamaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala marka la hor istaago ee qiyaamaha la tago ma thamma illa maslakan imma ila duba wa imma ila wayl hadii qiyaamaha ilaahay la hor istaago laba wado oo kaliya taaba furan in xagga jannada loo kaco oo qofku xagga jannada uu tago ama inuu noqdo hoygiisu naar ciyadan billahi alazim fariiqun fil jannah وفريق في السعير سيد الله سبحانه وتعالى ويري نفترض انه حسابنا حساب ادق وهي حساب نوع عاسيه وينو كفايدينا معاش بابركا انه ugu jira oo wixii khayr ka maqan waa soo jiidanaysa wixii shar kugu suganna qofku waa ka dheeraanaya waana ka toobad keenaya ikhwaani fillah wala layal ما دونينا إننا نقلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر هدينا دونينا إننا نقلنا قال مركا خير كفره سأه شر كحره سأه فعلينا بالإخلاص لله جل وعلا في الأقوال والأعمال إلهي سبحانه وتعالى أين كليق يقواشين يا عماشين وننماذن وحين سمينينو يوحين كهر لنا هالنقض من الله سبحانه وتعالى وخالصا لا تعمل أي عمل ولا تقل قولا إلا وأنت ترجو به ثواب الله فعلها سمين وعملها ليما هذا أنها كل واقع إن هذا الله سبحانه وتعالى أباد مرنتي سادة شيء يسو إلهي الدرادي كاتاي إخلاص عملك وكجر موياني فالمخلصون عباد الله صادقون في أقوالهم وأعمالهم جادون فيما يأتون ويذرون مأمونة منهم الغائلة سبيلهم إلى الخير ومآلهم إلى الصلاح والإصلاح والله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا الخالص لوجهه جل وعلا أضومها إلهي المخلصين تأه وقار فعل كوغي هذا الكوغي كدب شيئا وكرن شيئا وقار قوان كسمي وحي لا يمنيان يوحي كتغيان انت ما إخلاص باوهرية ودودوا حق خيرك وحي جعليه وناقا يعني ددك وناتيان إلهي سبحانه وتعالى ما أقبل عملك كيس خالص كأهمو يالي كفر إلهي سبحانه وتعالى ما أقبله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ربي سبحانه وتعالى له أضومها لما أمر مويانه إن إلهي سبحانه وتعالى أو خالص يلان وبر احترام دينت عبادته يا عماش أي سمينيان نعم كإلهي سبحانه وتعالى وسيادون كيسا مخلص كوحاكم ذا إنه إلهي سبحانه وتعالى وكالليحيو ودد الشرك يا حمان تأودم بو إلهي سبحانه وتعالى كالليحيان وحوكوهنون يا إلهي ودد خيرك يا وناق أودم فقد قال الله عز وجل عن نبيه يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين سداس بانو قال لي حني حمان أردن يوح اللي وح فالحن دمان وحيابها فالحن قالوا كل يحنبوا الله سبحانه وتعالى يوسف أي الله سبحانه وتعالى يوسف محايا لي إنه من عبادنا المخلصين قراءات قال وحاكسوا أروري إنه من عبادنا المخلصين فكان مخلصا وحوها نبي يوسف عليه السلام
miduu ilaahay subxaanahu wa tacaala doortay wuxuuna taa ku gaadhay an kaana mukhlisa inuu ahaa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala u badhaxtira cibaado oo dhan ilaahay subxaanahu wa tacaala keligii siiya shay cibaado ka mid ah marnaba aan leexin ikhwaanii fillaah walaalayaal ma doonaynaa inaynu noqonno mafaatiixa lilkhayr magaaliiqa lishar hadday tahay jawaabtu haa facalaynaa biاdducaa والإلحاح على الله بالسؤال والطلب إلهي سبحانه وتعالى أن ويديسنه بأن يجعلنا من مفاتيح الخير مغاليق الشر إنه رب سبحانه وتعالى إن قدقه خير كفرهيسة شرك وحيابها مركاحلة دعاء لفتيدا يا وحيتها مركا مفتاح للخير سيدا أئمة العلم إلهين رحمة الله عليهم الدعاء مفتاح الخير إلهنا سبحانه وتعالى مرنا ما هوجيو أدونكيسا بريا إلهي سبحانه وتعالى أدواقه اسكو دولدغا تضرع لي ماده إلهي سبحانه وتعالى مرنا ما هوجيو دعويك القرآن كسو أرارينا وحا كمدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إلهي وأنك يا قوم كيغا إلهي بيني يا رسولك بيني كتابكي لا soo dajiyay beeniyay rabbiga yawna kala saar oo xaq iyo dhab lagu kala saar anta khayrul faatihiin ilaahi asmaadiisa magacyadiisa waxa kamida al-fattaah allah marka wax kasto khayra fura wax kasto wanaaga ilaahi subhanahu wa ta'ala fura sida awgeed ba waxa muhiima ilaahi subhanahu wa ta'ala asmaadiisa wa min asmaa'ihi al-fattaah inaynu ku ducaysano إلهي سبحانه وتعالى إنه خير كفره سينغا ييلو شرك خليه سنة إلهي سبحانه وتعالى إنغا ديو إخواني في الله ولا ليال هذين دونينو إنه نقرنو قار خير كفره سنقضى إسلام مركز شرك خليه سنقضى علينا الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى وحال إن قربا إنه سوقا بالله إلهي سبحانه وتعالى عبادته سيطاع ديسا gaarahaan waajibaadka inaynu noqono qaar ka soo baxaya oo gudanaya oo sidoo ilaahay subhanahu wa ta'ala u amray ee rasuulku u faray calayhi salaatu wasalaam qaar ula yimaada aynu noqono gaarahaan salaadaha waajibka ah ee tiirka labaad ee islaamka ka mid ah inaynu xifdino ilaalino oo xil weel aynu iska saarno dhamaanteen fa inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa ya salatu ومد أدونك كريبته أو كهرسيسة وحكستو أوحن وفالحن ويكريبته وإذا كان هذا شأن العبد محافظا على أوامر الله مقبلا على طاعة الله مجدا مجتهدا في التقرب إلى الله فإنه بإذن الله عز وجل يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر أدونكم مركوا نقضه mid ilaahay daacadkiisa soo qaabilaya awaamirta ilaalinaya daacadka ku dadaalaya ilaahay inuu u dhawaado aad ugu dadaalaya ilaahay idankiisa adoonkaasi wuxuu noqonayaa mid khayrka fura u ah sharkana isla markaa xidha u ah walaalayaal haddaynu doonayno inaynu noqonno furaha khayrka isla markaa sharka xidhaya صفاتكينا يتلمامهنا كمد هذان أخلاق رفيعا أي نكفقانه وحكستو ليته أو دقن كي أنشح كمدا فصاحب الخلق الكريم يحجزه خلقه عن الرذائل ويبعده عن العظائم قفك أخلاق رفيعا له دقن كيس وناكسن يهي دقن كيس وناكسن أيا قفك وحو كتهذا أو كقبتا وحكستو ليته هوسايه وحكستو وينو دب لنا أدونك واو كفوغيا وحاسدا كدوان أدونك دقنكيسو xun yahay ee uu liito dhaqankiisa xun baa qofka wuxuu ku hagaa wax kasto xun iyo balaayo kasto weynba waxa ku haga dhaqankiisa markaa xun dhaqankeena iyo anshaxeena aynu hagaajino nabiga aynu ku deena calayhi salaatu wasalaam fa inna khuluquhu kana fi alquran maxaa yeelay rasuulka calayhi salaatu wasalaam
dhaqankiisa iyo suluugiisu quraan buu ahaa wax kastoo quraanku amro wuxuu ahaa mid la yimaada oo ku dadaala wax kastoo quraanku u diidana waa uu ka dheeraan jiray waa uu ka fogaan jiray waxaa laynaga rabaa walaalayaal haddaynu doonayno inaynu noqonno furayaasha khayrka inaynu la saaxiibno oo aynu la fadhiisanno waqtigeena la qaadanno dadka akhyaarta ah ee wanaagsan ee saalixiinta ah ee diinta ilaahay subxaanahu wa tacaala ku toosan waayo qofka mu'minkaa lagama rabo inuu la socdo oo uu la fadhiisto cid alliya cidda uu doono cid dhaqankiisu uu wanaagsan yahay diintiisu ay fiican tahay akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala amarkiisa u hoggaansama wuxuu rabbi u diidayna ka dheeraada inuu markaa qofku raaco la dhaqmo oo uu la socdo saaxiibuu ka dhigto ayaa markaa laga rabaa lianna asaaxiba saaxib maxaa yeelay saaxiibku waa jiite waa uu ku soo jiidanayaa imaa adigu inaad jiidato oo dhaqankaaga oo kale isagii uu yeesho imaa isagu inuu ku jiito oo dhaqankiisa oo kale aad yeelato labadaa marnaba kama dhaxayso meelun baa laiskugu soo biyashubtaa wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam sida imaam abu daawuud iyo axmed ay soo saareen almar'u calaa diini khaliilih falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu ku sugan yahay diinta saaxiibkii ee midkiin ha eego bal cidda uu la saaxiibayaa cidda ay tahay ha iska fiiriyo majaalisu alakhyaari haniima majaalista iyo fadhiyada dadka wanaagsan aynu la fadhiisanaynaa waa haniimo khayr iyo wanaag baa laga faa'iidaa faina majaalisahum taqshaaha alraxma وتتنزل عليها الملائكة بخلاف مجالس الأشرار فإنها متنزل الشياطين ذلك ولا سنة دينا لفريستون أرنكاسي وحاو كينا إن حريسي ذاتك دباشو ملائكنا يكسو دكتو سيدا رسولك شاقع عليه الصلاة والسلام وحاسدا كدوان ذاتك حنحن إن قوابها يفريستان لتقو oo iyaga la saaxiibo waayo waxa ku soo daga shayaadiinta ayaa ku soo degta hal unabbiukum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afaakin athim ma idin ka warrama abu rabbi subhanahu wa ta'ala oo yiri shayaadiintu ciiday ku soo degto waxay ku soo degtaa mid kasta oo been badana ah oo dambi badan oo dhaqankiisu uu xun yahay waa dadka akhlaaqdooda iyo diintooda ay liidato sida awgeed in laga dheeraado ayaa markaa muhiima dadka aan wanaagsanayn oo la saaxiibo oo waqtiga la qaato dadka wanaagsan ee aad ka faa'iideyso wanaagga iyo khayrka cilmiga iyo diinta dhaqanka iyo anshaxa wanaagsan aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إخواني في الله ولا ليال هدين دونين إنين نقنه أضومها إلهي خير كفره سأه إسلامك الشركة نحدة علينا النصيحة لعباد الله waxaa korkeena saaran oo laynaga rabaa inaynu ka shaqayno wanaagga dadweynaha iyo addoomaha ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu u nasteexayno wixii wanaagii khayru ku jirana aynu markaa u sheegno wixii ka qaldan loo toosiyo oo markaa loo hagaajiyo wixii ay ku saxsan yihiinna lagu taageero oo markaa garabkooga lagu galo maxaa yeelay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu in badan uu sheeguu ku celceliyey diintu gebigeeduba inay nasteexa ay tahay addiinu nasiixa addiinu nasiixa addiinu nasiixa wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam diintu waa nasteexo diintu waa nasteexo diintu waa nasteexa baa rasuulku dhahay calayhi salaatu wasalaam waxay nasteexa u tahay waxaa ka mid ah addoomaha ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo nasteexeeyo oo khayrka la tusiyo oo sharka markaa laga leexiyo oo marka la arko wanaag iyo khayr ku jiraan loogu mahadnaqo lagu taageero marka la arko wadadu inay ka qaldan tahayna in loo nasteexeeyo
oo xumaha ay ku jiraan laga leexiyo oo diinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala loo sheego oo marnaba aan lagu daawan xumaha ay ku dhex jiraan wanaagga la amro xumaantana loo diido sida rabbi subxaanahu wa ta'aala ina amray waltakum minkum ummatun yad'uuna ila alkhayr ya'muruuna bilma'ruuf وينهون عن المنكر هذا كمد هذا قار يكوح إلهي سبحانه وتعالى دين تسكو باقيا وددك وناق أمريا حمانتنا أدهديا إساقوا قفك مسلم كان لقربه وحاوكو باقيا إنه وقوني علمي أوليه هنا علمي الآن قفك الدين تهنا اسكو قادين وحونا قرنين ولك شقينين markaasuu qofku noqdo daaciyan ila Allah mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ugu baaqa khayrka u sheega xumaha u diida waxa ka horeeya inuu qofku aqoon yeesho inuu diintii barto kadib walaaga uu dadka faro xumahana uu markaa qofku u diido arimaha noocaasiya waa arimaha keeni kara inuu qofku noqdo miftaaxan lil khayr miqlaaqan lil shar Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu وحديث كراويق سوري أي وحا كسقنا هذا إنه يري إن ثابت البناني من مفاتيح الخير ننك الليلة هذا ثابت البناني وحا كمذ يهي فرياش مركا خيرك فمن هو ثابت البناني ثابت واكما من أجلة التابعين وعلماء المسلمين حملة الدين وأنصار السنة وتابعينتي kuwii markaa ugu waaweynaa waa dadkii rasuulka aan soo gaarin laakiin saxaabada soo gaaray waa muslimiinta culamadoodii mid kamid ah waa dadkii diinta u hiiliyay ee u gargaaray mid kamid ah weeyaan Thabit al-Bunani radiyallahu rahimahullah saxaabiga Anas ibn Malik radiyallahu anhu ayaa waxa uu ku sifeeyay ninka Thabit oo taabici ah inuu yahay min mafatih al-khayr furayaasha khayrka inuu kamid yahay ayaa uu ku sheegay أريك نوع عاسيان محوك هذي كان ثابت رضي الله رحمه الله كان إماما ومعلما وناسحا ومرشدا دالا عباد الله إلى الخير معلما لهم مفقها في دين الله ثابت وحوها رحمه الله من إمام وهو قامية وددك خير كي وراقك هو قامية معلم ددك خير كبره ونستيحيو هلو توسيه أدومها إلهينا خير كتوسا معلم كوغنا أهدين تنفهنسية سيدا أوغنا يا أنس رضي الله تعالى عنه وحاو كسفي ثابت البناني إنه يهي مفتاح للخير بالمركة خير كفره سآه وهكذا شأن العلماء الناصحين والدعاة المصلحين في كل زمان وأوان وفي كل وقت وحين سيدا صوكل وحوي أدومها إلهي علماء ee adoomaha u nasteexaya ee dadka diinta ugu baaqay muslixiinta waqti kasta ay joogan iyo goob kasta ay joogan hum mafatihun lil khayr maqaliqun lil shar wa khayrka furihiisi sharka xirihiisi dadka ayaabay tusaan hanuunka iyo xaqa waxayna u diidaan wax kasta oo hooseeya yuallimuna al jahil wa yudhakkiruna al ghafil ويرشدون الحائر ويفتون السائل وينصحون لعباد الله وحي بران كوغا جاهل كي وحبان قرنين وحي حسوسيان كوغا موغن كوغا هليسان بيهاقان وي توسيان إلهي إذن كيسة كوغا سؤال هبي وجوابان أضومها إلهي بمكا ونستيحيان فما أعظم أثرهم على الناس وما أعظم خيرهم ونفعهم خير كوغا ينفع كوغا وحتر كوغا محاك في عن الراد كي ددك كدحليهن محاك في عن سيدا أوغيد با واجب كي نسار نوحو يهي إنين وأضومها إلهي علماء ee diinta inoo xambaarsan ee diinta aqoonteeda haya in la ixtiraamo oo makaanadooda iyo manziladooda iyo qadarkooda la dajiyo wuxuu nabigu calayhi salaatu wasalaam laysa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu ummadayda kamid maaha kaan weynayn kooga weyn kooga yarna aan u naxariisan caalimkoogana xaqiisa aan siinin ka noocaasiya ummadayda ka mid maaha ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida awgeed
ayaa waxaa muhiim oo waajib ina saarana in culimada xaqooga la siiyo lawla alulamaa la asbaxa annaasu mithla albahaa'im haddayna culimo jiri lahayn dadka diinta tusa oo diinta bara oo khayrka ugu baaqa oo xumaanta u diida dadku waxay noqon lahaayeen sida xoolaha oo kale ayaabay noqon lahaayeen laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga sababtooda ayaabuu inagaga dhigay dad qiimo leh oo qadar iyo maamuus iyo markaa sharaf leh ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaga sababtooda inagaga dhigay sida awgeed ayaa markaa waxaa muhiim ah culimmada iyo dadka ahlulcilmiga ah ee dariiqa saxda ku baaqaya ee sunnaha rasuulka ku dul taagan calayhi salaatu wasalaam ixtiraamka la ixtiraamayo iyo weynaynta markaa la weynaynayo iyo ducada la ducaynayo loo ducaynaya intuba waxay ka mid tahay waajibaadkay markaasi inugu leeyihiin nas'alu allaha jalla wacala أن يجزي عنا علماءنا في القديم والحديث خير الجزاء على نصرهم للسنة وحفظهم للدين وتعليمهم لعباد الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين دمر أعداءك أعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا